Ma dareentay mararka qaarkood in qalbigaagu uu ku culus yahay inaad tukato, balse qalbigaagu uusan la joogin salaada? Ama inaad quraanka akhrido, balse uusan kuu dhadhamayn? Haddii aad sidaas dareentay, kaligaa ma tihid. Iimaanku wuu kordhaa, wuuna yaraadaa, laakiin qalbigu mar walba wuu ina siiyaa calaamado. Maanta waxaan ka hadli doonaa 3 calaamadood oo si cad u muujinaya in iimaankaagu daciifay, iyo sababta ay muhiim u tahay inaad si degdeg ah u ogaato. Tani waa digniin ah in qalbigaagu u baahan yahay dib u dhis. Ma aha canaan, balse waa fursad aad dib. Marka aakhiro qalbigaaga ka baxdo, iimaankaaga si tartiib ah ayuu u daciifaa. Haddii aad isku aragtay hal calaamad ama ka badan, ha quusan. Iimaanku wuu soo laaban karaa. Hal tallaabo yar ayaana ku filan inuu qalbigaaga dib u nooleeyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Maanta waxaynu ka hadlaynaa mowduuc aad u muhiimsan, nana taabanaya dhammaanteena. Mowduucaas wuxuu yahay 3 calaamadood oo muujinaya qofka inuu iimaankiisu daciifay. Mar hadduu iimaanku daciifo, waxyaalo badan oo nolosheena ah ayaa hoos u dhacaya. Maanta mowduucaas ayaan si fiican uga hadli doonaa, anagoo si cad uga hadli doona arrinkaas. 3 calaamadood waxay kala yihiin: calaamada koowaad, tada iyo walbahaarka. Marka qofka uu niyad jabo oo wax walba oo ku dhacaan, oo dareemayo diiqad aad u tiro badan, niyad jab, ka fikir joogto ah, iyo asbaabaha ay ugu dhacayaan qofkan dhibaatadan. Taas ayaa keenayso mar walba qofka inuu niyad jabo. Niyad jabka badanaa waa waxyaalaha noogu dhaca oo keensanayso hadhow inaynu mar walba ka walbahaarno. Qof baa waxaa ku dhacaya dhibaato aad u culus ama xanuun nafsi ah, in haddii ay ka khasaarto kale. Waxyaalo badan oo dadka niyad jaba ayaa buuxaan. Weliba zamankan aan maanta marayno waa zaman aad u khatar badan, dhibaatadana ay tiro badan tahay. Qofka hadduu qalbigiisa oo iimaanku ka sii yaraanayo, niyad jabkaas waxay ka dhigaysaa in uu mar walba oo isweydiiyo halka dhibaatada ay ka haysato. Waxaa laga yaabaa inaysan marnaba niyadiis ku soo dhicin waxa kan waa musiibo, waxa kan waa qadar, ee ku sabar. Waxaa laga yaabaa inuusan sabrin oo is dhaho, haddii sidaas la sameyn lahaa waxaan kuguma dhicin, haddii sidaan aa sameyn lahayd waxaan kuguma dhicin. Waana waxyaalo eray aad waxay furtaa albaabada shaydaanka. Haddii aad low mar walba aad tiraahdo, haddii sidaas aan sameyn lahaa. Laakiin haddaad dhahdid qadarullah wa maa shaa facal, qalbigaagu wuu ku hagaagi lahaa. Laakiin mar walba aad tabanaysid, mar walba aad dareemaysid niyad jab, walbahaar, cabsi, taas waxay keensanaysaa in qalbigaagu iimaanku ka sii liidanayo. Mar hadduu iimaanku liitana, waxaa kaasi waxay kugu noqonaya hadhow cudur socdo, dhibaato badan ayna kuu geysan karaan. Niyad jabkaaga hadduu sii batana, heer waxaa gaari kartaa oo aad u halis badan. Marka waa qodobka koowaad ee iimaanku qalbigeenu oo daciifayo. Qodobka labaad aan maanta ka hadlayno oo iimaankuna daciifayo: ka fogaanshaha cibaadada iyo qur'aanka. In salaadu iyo cibaadaadku ay noo noqdaan kuwo nafteena ay ku culus tahay, kuwo aanan mar walba waqtiga loogu talagalay salaada oo kale aanan tukan karin, khushuuceeda dhabta aanan sii karin, ee kaliya ay noqoto waajibkii Ilaahay saaray aan hal mar iska soo rido, hal mar iska soo dhaafiyo hadday noqoto salaadii. Taas waxay muujinaysaa ee calaamad u tahay in iimaankeenu daciif yahay. Dadkii wanaagsanaa ee saalixiinta, asxaabadii iyo dadkii wanaagsanaayeen, salaadu waxay u ahayd wax ay ishooda ku ildoogsan. Qur'aanka kale akhriskiisa hadduu kugu yaraado oo tadabburkiisa iyo fiirsashadiisa ay kugu yaraato, aadan waqti badan gelinayn, oo aadan ugu yaraan bishii hal mar aadan dhammaynin, waxay keensanaysaa in iimaankaagu uu daciif yahay. Waxaa laga yaabaa inaad waqti badan ku bixiso TikTok, Facebook iyo fiidiyowyada gaagaaban, laakiin se aadan 10 daqiiqo aadan qur'aan aadan akhrin. Waxaa laga yaabaa saacado badan inaad ku bixisay Facebook iyo TikTok, balse 10 daqiiqo aadan ku bixi karin qur'aanka inaad akhrisid. Taasi aad iyo aad waxay u muujinaysaa in iimaankaagu uu sii daciifayo, loona baahan yahay inaad dib u habeen ku sameeyid noloshaada si iimaankaaga dib ugu xoogaysto. Iimaanku wuu kordhaa,
wuuna naaqusaa. Mar walbo aad cibaadada ka fogaatid, mar walbo qur'aan akhriskaagu yaraado, mar walbo oo yaraado xuska rabbigaaga subxaanahu wa tacaala, noloshaadu iimaankaagu dib ayuu u dhacaya. Mar walbo aad ku dadaashid cibaadada, mar walba qur'aan akhriska aad joogtaysid, xuska ilaahay aad joogtaysid, mar walba oo kor u sii kacayo iimaankaaga weeyaan. Marka waxaa muhiim ah in iimaankeenu aynu ilaalino. Iimaanka waxaa lagu ilaalin karaa in cibaadada ay noo dhadhanto, qur'aanka aan dareenno, ku dhaqanno, markaas ayaan dareemeynaa inuu iimaankeenu ziyaaday. Aan ku dadaalno. Qodobkan labaad aad u muhiim u yahay, waa calaamad muujinaysa in iimaankeenu daciif yahay. Haddii salaadeena, cibaadaadkeena, qur'aan akhriskeena oo liito, waxay si cad u muujinaysaa in iimaankeenu daciif. Haddii calaamadan aad isku aragtay, commentigna la wadaag. Halkana wuxuu ku jiraa inaan dib boorka uga jafno, aan cibaadaadka ku dadaalno. Waa waxa keliyana anfacayo aakhiradeena iyo adduunkeena. Qodobka labaad muhiimadiisu waxay tahay in iimaankeenu uu daciifayo marka aan ka fogaano salaada, qur'aanka, xuska rabbigeen. Markaynu ka fogaano, iimaankeena aad u sii. Qodobka saddexaad oo iimaanka inuu daciifay lagu ogaanayo wuxuu yahay qalbigeena oo adduun keliya ka fikiraya, qalbigeena oo adduunka keliya ku mashquulsan. Mar walba oo adduunka keliya aad ku mashquulshid oo waqtigaaga ugu badan hadalkaaga oo dhan oo noqdo sidee adduunkan iyo sidee aan wax u qabsadaa, sideen heer u gaaraa, adduunka keliya aad ka fikiraysid oo aad aakhiro iyo dhimashada aad hilmaantid. Taasi waxay noqonaysaa in qalbigaagu uu iimaanka uu ka daciifo, shaydaanna uu ka faa'iidaysto fursadaas oo waxyaalo badan oo adduunka iyo dhaldhalaalkiisa uu ku soo bandhigo, maadaama fikradaadu ay keliya ay tahay adduunka. Laakiin noloshan haddaad rabtid aakhiro iyo adduun inaad guulaysatid, waa inaad labada dhinac ku dadaashaa. Aakhiradaadana aad waqti badan gelisaa, adduunkaagana meesha aad ku nooshahay oo aad ku nasanaysid oo lagugu talagalay inaad ku noolaatid weeyaan, si wanaagsan ugu noolow. Aakhirana waa meesha noo dambeyso, aan u sii diyaar garowno. Mar walba adduunkeen oo bato waa sida saxda. Mar walba adduunkeen marka uu bato, nolosheenana iyo iimaankeenu aad u liidanaya. Mararka qaar waxaa laga yaabaa fikradeenu haddii noola weydiiyo qalbigaaga maxaa ku jira, si fudud jawaabtu waxay u noqonaysaa maanta waxaan ka fikirayaa adduunka, waxaan ka fikirayaa inaan mustaqbal samaysto, waxaan ka fikirayaa inaan ubad badan dhalo, ubad badan aan helo, waxaan ka fikirayaa inaan lacag tiro badan gacanteeda soo gasho, waxaan ka fikirayaa inaan guryo badan gato, waxaan ka fikirayaa in aan baabuur badan samaysto gato, waxaan ka fikirayaa mustaqbalkayga soo aadan inaan wax u sii dhigto. Laakiin qalbigayga waxaa ka maqan inaan dhiman doono, waxaa ka maqan aakhiro inaan tagayo, waxaa ka maqan inaan ilaah hortiisa taagayo. Taas waxay keensanaysaa in iimaankaygu uu yahay mid daciif ah. Adduunka keliya markii nolosheena kusoo koobno, adduunkan in yar ayaa lagu noolyahay, waqtigiisana aan ku noolaanaynona ma badno. Waxaana laga baahan yahay inaan muctadil ka dhigno nolosheena, adduun iyo aakhiro. Iimaankeenana aan ilaalso. Waxyaalaha iimaanka ilaalin kara oo kordhin kara: 1. cibaadada ku dadaal, qur'aan akhriskaaga joogtay. 2. aakhiro in badan ka fikir, geerida ka fikir. Mar walba aad geerida xasuusan tahay oo aad aakhiro ka fikiraysid, waxyaalo badan oo aad sameyn lahayd ayaad ka gaabsanaysaa. Waxyaalo badan oo adduunka aad ka fikiri lahayd ayaa xoogaa ka yaraanaya. Haddii muuqaalkan uu wax kaa cajibiyey, fadlan commentiga hoos noogu qor. Haddii muuqaalkan uu ku anfacay, ku soo biir Miirath Podcast. Mahadsanid.